meeshan waxay ahayd guriga Mehraan Karimi Nasiri ama loo yaqaano Mudane Alfred. Gurigiisa wuxuu ugu noolaa sida caadiga ah, uu seexan jiray, uu ka cuntayn jiray, uuna ka cabi jiray. Laakiin waxaa ka dhigay gurigan mid ka duwan guryaha kale waa eeraboorka caalamiga ee Paris CDG Terminal 1. Mudane Alfred waxa uu soo caga dhigtay eeraboorka Paris 1988 waxa uuna joogay ilaa 2006, waana muddo 18 sano ah. Ninkan wuxuu ku dhashay Iiraan. Aabihiis wuxuu ahaa dhakhtar shirkad shidaal. Markii uu jiray da'da 27 sano wuxuu ka qayb qaatay dibadbax loogu soo horjeedo dowladda Iiraan oo ugu dambeynna riday. Laakiin inta dowladdaasi aysan burburin waa la soo musaafuriyey. Iiraan waxay kala laabatay dhalashadii, kadib waxa uu noqday qof dal la'aan ah. Kadib codsiyo uu sameeyey waxaa maangelyo uu ka helay Beljimka. Durba dhimashada aabihiisa, hooyadiis waxay daaha ka qaaday in aysan dhalin Alfred, balse uu ka dhalay hooyo Scottish ah. Haddaba arrintan waxay u noqonaysaa Alfred faa'iido ama khasaaro. Faa'iidada waa isagoo xaq u leh dhalashada Ingiriiska. Khasaarahana waa sharciga Iiraan awgiisa xaq uma yeelanayo inuu dhaxlo hantida aabihiisa. Alfred waxa uu ka soo duulay Paris isagoo oo aanan wadan wax passport ama visa ah, kuna wajahan Ingiriiska si uu u xareysto dhalashada dalka Ingiriiska. Sababo aan la aqoonin waxa uu lumiyey dokumentigiisa qaxootiga, wuxuuna sheegay inuu ka lumay. Dadka qaar waxay leeyihiin uu jeexjeexay. Markuu yimid London isagoo aanan wadan wax passport ah, waaxda socdaalka durba waxay ku celiyeen Paris. Faransiiska markuu yimid iyagana way u diideen inuu gudaha u galo dalka, mana jirto meel loo celiyo. Kadib waxa uu gurigiisa ka dhigtay eeraboorka isagoo oo samaystay meel uu seexan karo. Intuu ku noolaa eeraboorka wuxuu ka helay caawinaad dadka safrayey. Kadib 10 sano uu ku noolaa eeraboor Faransiiska iyo Beljimka waxay siiyeen degenaansho. Laakiin waraaqadaha markii loo keenay ayuu diiday inuu saxiixo, sababtoo ah waxay dhalasho ahaan ugu qoreen Iiraan, taas oo uu diidanaa. Xaaladdiisa maskaxiyan way sii xumaatay inta uu ku noolaa eeraboorka. Muddadii ku noolaa eeraboorka waxa uu qoray buug taariikh nololeedkiisa ah. Sanadkii 2003 shirkad filimada samayso ayaa siisay $250,000 si filim ugu sameeyo. Sanadkii 2006 waxaa la soo darsay xanuun, xaaladdiisana way sii xumaatay. Waxaa la dhigay isbitaal ku yaala Paris. Markii laga soo saaray isbitaalka dib muusan ugu noqon. Kadib waxaa la dejiyey meel lagu hayo dadka guri la'aanta ah.